Caasimadda dhulka hoostiisa ama magaalada Gantaalada waa eray bixin muddo dheer soo jirtay oo ay Iiraan ugu yeerto saldhigyadeeda ku yaala dhulka hoostiisa. Ereyga magaalada Gantaalada oo ay curuntiisa leeyihiin ilaalada kacaanka waa mid ay u isticmaalaan inay ku qeexaan saldhigyada dhulka hoostiisa ku yaala ee ahmiyadda ugu fadhiya Iiraan. Saldhigyadan dhulka hoostiisa ayaa keediya madaafiicda, gantaalada casriga iyo diyaaradaha muhiimka u ah xukuumadda Tehraan, waana godad dhaadheer oo ku yaala dhulka hoostiisa, kuwaas oo loo dhisay hab cajiib ah isla markaana leh qaybo kala duwan. Muddo badan reer galbeedka ayaa aad isugu howlay helidda xogaha ku saabsan halka ay ku yaalaan saldhigyada, balse xogo bilihii ugu dambeeyay soo baxay ayaa sheegaya in godadkan ay ku yaalaan buuraha iyo deegaanada istiraatiijiga ee Iiraan. Saldhigyadan ayaa ah kuwo ay ka dhex socoto howl muhiim ah iyo adeegyada wax soo saarka iyo kaydinta madaafiicda balaastikada, gantaalada cruise-ka, hubka kale sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo nidaamka difaaca. 10kii sano ee lasoo dhaafay ilaalada kacaanka waxay soo bandhigeen sawirro ka mid ah saldhigyadaasi dhowr jeer, taas oo muujisay in qaab dhismeedyada saldhigyadaasi uu aad u kala duwan yahay. Ogeysiiska iyo hadalhaynta magaalada Gantaalada ayaa soo shacbaxday xilli Iiraan ay si joogto ah ugu hanjabaysay weerar aargudasho ah tan iyo weerarkii labaad ee Israa'iil ee bishii November 2024, balse iminka waxay u muuqataa xukuumadda Tehraan mid soo bandhigtay awoodda saldhigyada ay ku leeyihiin dhulka hoostiisa. In muddo ahba Iiraan waxay soo bandhigaysay madaafiic si ay u muujiso awooddeeda iyo inay ka jawaabto hanjabaadaha ka imaanaya dalalka sida Israa'iil iyo Mareykanka, iyagoo bidhaaminayay guulo waaweyn oo ka tirsan qaybta hubka militariga. Inkastoo ay qarinayso xogta rasmiga ah ee barnaamijkeeda madaafiicda iyo saldhigyada, haddana ilaalada kacaanka waxay dhowr jeer ka dhawaajiyeen inay leeyihiin saldhigyo madaafiic oo aad u fara badan, kuwaas oo laga dhisay godad qoto dheer iyadoo la isticmaalayo xirfad casri ah iyo injineernimo qaas ah oo aanay cidna la wadaagayn. Markii ugu horreysay sanadii 2015, taliyaha ciidamada cirka ee Iiraan ayaa shaaciyay inay jiraan saldhigyo madaafiic oo 500 mitir dhulka hoostiisa ah, kuwa oo ku yaala meelo kala duwan oo gudaha Iiraan ah. Ilaa waqtigan ma jiraan xog sax ah oo ku saabsan goorta la dhisay saldhigyadan, laakiin Mahdi Bakhtari oo ah wariye ka tirsan Faris News Agency ayaa ku sheegay wareysi uu siiyay Al Jazeera in saldhiggii ugu horreeyay ee madaafiicda ee dhulka hoostiisa laga dhisay Iiraan in la unkay sanadii 1984, markaas oo Iiraan ay bilowday barnaamijkeeda madaafiicda. Barnaamijka madaafiicda ee Iiraan ayaa bilowday xilligii dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq, iyadoo garab ka helaysa dalal ay ka mid yihiin Waqooyiga Kuuriya iyo Shiinaha. Warbaahinta Iiraan iyo ilaalada kacaanka ayaa ilaa hadda soo saaray kaliya sawirro iyo muuqaallo ka mid ah saldhigyada madaafiicda ee dhulka hoostiisa ee ay ugu magac dareen magaalooyinka Gantaalada. Si kastaba ha ahaatee, goobaha saxda ah ee saldhigyadan looma shaacin si rasmi ah, laakiin saldhigyadii dhowaan daaha laga qaaday ee muhiimka ahaa ayaa loo badinayaa inay ku yaalaan gunta hoose ee xeryo ku yaala buuraha Sargoso, magaalada Bushehr iyo sidoo kale gobolka Hormuzgan. Mid ka mid ah muuqaalada aadka u faafay ayaa muujinaya god weyn oo ay ka buuxaan madaafiic, halka saldhigyada qaar ay dhex maraan tareenno dhulka hoostiisa ah. Magaalooyinka madaafiicda ayaa markii ugu horreysay si joogto ah loo muujiyay xilligii ilaalada kacaanku ay weerareen ISIS gudaha Suuriya, waxaana sidoo kale jirtay in lasoo bandhigo marka ay fulinayaan howlgallada loo yaqaano howlgallada ballanqaadka runta ah. Sida la xasuusto bishii Maarso 2020, ilaalada kacaanka ayaa daaha ka qaaday magaalo Gantaal oo ku taala gacanka Bershiya, waxaana saldhiggaasi uu qayb ka ahaa kuwii ugu casrisanaa ee shaashadaha laga dhehdo, waana mid la rumaysan yahay inuu ku yaalo gobolka Hormuzgan. Taliyaha guud ee ilaalada kacaanka Hussein Salimi oo kal hore ka hadlay magaalada Gantaalada ee dhacda gacanka Bershiya ayaa sheegay in warshadan ay ka mid tahay dhowr xarumood oo keediya madaafiicda istiraatiijiyadeed ee ciidamada badda ee ilaalada kacaanka. Marka laga soo tago ciidamada cirka ee kacaanka, ciidamada badda ee Iiraan ayaa leh madaafiic u kala goosha dhulka iyo badda, kuwa dhulka iyo dhulka isaga kala goosha sida madaafiicda Yaali iyo Hawiza. Tirada saxda ah ee saldhigyada madaafiicda qarsoon ee Iiraan lama oga, laakiin madaxa xarunta tababarka ee cilmi-baarista ee ciidamada militariga ee Iiraan ayaa sheegay Janaayo 2015 in marka laga tago ilaalada kacaanka, in sidoo kale ciidamada militariga Iiraan ay leeyihiin magaalooyin madaafiic kuwa oo qarsoon. Sida uu sheegay Amiir Cali, taliyaha ciidamada cirka ee ilaalada kacaanka ayaa yidhi, haddii aan soo bandhigno hal magaalo oo gantaal isbuuc kasta, taxanaha ma dhammaan doono 2 sano gudaheed. Tani ayaa bidhaaminaysa inay macquul tahay inay Iiraan leedahay ku dhowaad 104 magaalo oo gantaal, inkastoo arrintani aan si sahlan loo xaqiijin karin sababo la xiriira xog yari ku saabsan saldhigyada dhulka hoostiisa ee Iiraan. Mid ka mid ah saldhigyada dhulka hoostiisa ee dhowaan la baahiyay ayaa lagu soo bandhigay madaafiicda sida Khaybar, Xaaji Qaasim
Imad iyo Sajal. Madaafiicda balaastikada ee Imad ayaa ka mid ahaa madaafiicyadii loo isticmaalay weerarkii Iiraan ku qaaday Israa'iil oo burburiyay saldhigga cirka ee Nafatim ee dhaca gudaha Israa'iil. Ujeedada laga leeyahay magaalooyinka gantaalada ayaa ah inay iska caabiyaan weerarada dhanka cirka iyo in nafsad ahaantooda ay isdifaacaan, maadaama ay Iiraan xoogaa ku guuleysatay inay muujiso inay cudud u leedahay inay xajisato awoodeeda gantaalada xitaa marka la weerarayo saldhigyadeeda gantaalada ee dhulka. Waraysi uu siiyey Al Jazeera, wariye Mahdi Bakhtaari ayaa ku dhawaaqay jiritaanka magaalooyin gantaalo oo qarsoodi ah oo ay Iiraan leedahay, kuwa oo argagax ku ridi kara reer galbeedka. Waxaana xusid mudan in bishii Juun 2017 Amiir Cali uu ku dhawaaqay jiritaanka 3 warshadood oo dhulka hoostiisa ah oo Iiraan ah oo soo saaray gantaalada ilaalada kacaanka. Taliyaasha ilaalada kacaanka ayaa yidhi magaalooyinka gantaalada ma ahan kaliya meelo lagu keediyo gantaalada, laakiin qaar ka mid ah waxay yihiin xarumo lagu sameeyo laguna diyaariyo gantaalada ka hor inta aysan heegan u noqon weerarka. Sida laga soo xigtay falaqeeyayaasha xeryahan ama sida ay ku sifeeyaan ilaalada kacaanka, magaalooyinka gantaalaha ee dhulka hoostiisa ah waxay noqon karaan diyaar garow dagaal oo aan caadi ahayn, sababtoo ah waxay saamaxayaan in gantaalada laga soo tuuro meelo aan la garanayn, taa oo cadowga jahwareerisa. Tirada rasmiga ah iyo halka ay ku yaalaan saldhigyada dhulka hoostiisa ee Iiraan oo aan la aqoon ayaa walwal ku kordhisay reer galbeedka, kuwa oo sanadihii ugu dambeeyay walaac ka muujinaya barnaamijka Iiraan ee horumarinta nukliyeerka iyo saameynta ay xukuumadda Tehraan ku leedahay Bariga Dhexe oo marba marka ka dambeysa ahayd mid xoogaysanaysa.